بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إسوس ونغضنا سنجال يالي إن عف ما نغتاج يعنون وإن يعف ما والحمد لله رب العالمين هداكو صلاة كل سنة قايا في ديسين كان كو سكت بيجينا برتي يوتيوب كان كلنا يروشيغا كدي ما نسأوشي تميسك waxaan oo saaran design-kan oo loo adeegsado markay meheradu u adeegsadaan inay bastaradooda ay kasoo xayeysiiyaan sida caadiga ah oo kasoo bilowno from scratch ilaa iyo dhamaadka wixii resource-gana dhammaan waxaan soo gelinaynaa barta Telegram-ka aan ku leenahay linka description-ka ayaa idiin soo gelinaynaa la socod wanaagsan software-ka aan ku design gareynayna waa Adobe Illustrator haddaan soo furno Control N failka haddaan soo furno halkan ugu horreyn unit-ka adeegsanayna wuxuu ahaa pixels cabirkuna wuxuu noqonayaa 1080 height-ka baa waxaa ka dhigaysaa 1246 okay inta waa garanaysaan halkan waxaa iskaga qoranaysaa magaca rabtid customer creative oo kale artboard-ka nagu soo baxo kalaraanta aan adeegsanay baa halkan ka soo qaadana kalaraanta loo diyaarsan yahay marka idinkuna asagoo failku saas oo sp ahaan ah baa idiin soo gelinayaa ugu horreyn kalaraanta soo qaadanaya kalaraanta ku shaqeynayno maanta saddexda kalar marka artboard-ka ku soo nagu soo baxo waxaan rabnaa inaan samaysano background saa u samaysano marka waxaan soo qaadanaa rectangle tool meel banaan baa ku siinaa click waxaan gashanaa cabirka aan soo gashanay 1080 halkan waxa ahayd 1246 okay sii marka centerka marka isku waad alignment center to center okay marka waxaan rabnaa kana wax ka dhignay gradient isticmaalanaa halkaa wax siinaysaa click koonaha wax siinaysaa click eyedrop soo qaado asaanka ku sita kan kalena soo qaado eyedrop ama walba ku dooran yahay kalarka ku sita back blue ah marka halkan meeshan everytime baa soo filas eligtan yarta angle ah 60 ka dhigo intii ku anfacdo kale ama 80 oo ka dhigan ka dhanaga 60 ka baad ku deesan okay marka saas baa ka rabnaa inay back blue inta kaliya aan u deynaa rabnaa inta kalena casaan marka waxaan iska xirnaa marka loo Control 2 marka waxaan soo qaadanaa hadda rectangle kale inaas baa ku suranaa kalarka aan siinayna waa casaan kalarka dhooba ka bedelana marka waxaan soo qaadanaa calaamadda yarta hadda idiin soo dhaweeyo click baa siinaa share tool marka meesha dhexda wax ku siinaysaa click xoogaa yar baa wax ku siinaysaa isbedelka yarka check marka halka ku noqoto kana marka wax ka qaadanaa copy waan soo copy Control C Control F xoogaa marka kan kor saas iska qaad kan sare baa marka wax ku siinaysaa swap oo stroke baa siinayna stroke wax ka dhiganaa white size-kiisana waxa ka siinaa 10 waa batay iyo 8 oo kale okay marka kan sare hadda marka wax sareeya kan baa hadda sareeya oo stroke ah waxaan rabnaa kan sare aan soo kormarno right click baa siinaa arrange print to front akaas marka isla helid kare direction select tool soo qaado meesha koonaha kaliya click sii isla helid kare labada koone click sii adoo shift lahaya shift kaliya shift labada koone ma adoo lahaya xoogaa si isu jiibi oo jidari saddexda dhinac oo kale wax isbedel kuma sameeyo dhinaca unbaa ku sameeyo waxaana sababay waa shiftiga hadda shift aan la qaban afarta koonaba waa isla yaraanayaan maadaama adigu ahayd karsi dhamaantii weyne xoogaa akaas markana wax ku sameeynaa
shadow yar baa kan ku sameynaa stylish drop shadow halkan 75 ka baa ka dhigaysaa 50 halkan 0.5 and 0.5 هذا shadow lagu furay si uu u culisaanayo halkana 2 halkana 5 ka lagu daa okay marka waa ka xawaaye dadka drop shadow yaraa meel ku soo daray marka wax ku sameynaa group control J hada waa group aan ku sameeyay dhexda okay marka dhexda waa ka saasba meel ku geeyay marka hada halkan soo gashana waa maanta productiga hada aan xayeysiinta aan ku sameeyay waxa waaye computer HP EliteBook ah kan marka baa si aan sawir u soo gashano marka wax ku sameynaa n-group right click n-group kan baa marka wax soo gashanaa sawir kan sare oo shadow leh draw inside file please resource-ga ninkan dhamaan ka weynin diyaariyay kuwan halkan bay noogu diyaarsan yihiin anti productiga xayeysiinta aan ku sameynayna waa computerkaas EliteBook ah HP ga ah weynayna hada marka waxaan noo haraa waa computerka magaciisa taxi tool meel badan baa ku siinaa click soo jiid adoo shift la haya caps lock daaro HP EliteBook highlight garee farta aan isticmaalana waa idin tusiyo hala exo extra poly ah haysanaa dhexda alignment u sax center waxay far ah waxa haysanaa colorka dhaho white-ka maadaama white-ka soo meel walba uu soo baxayo colorka white-ka meel walba asoo ku soo baxay kalaanta markana marka wax ka qaadana copy halkaas noogay waxa ku qornaa baa waxay tahay EliteBook 830 okay marka kan sare keysi shift adoo la haya qoraalka hoosana la qabo dhexda marka isku aadinaya isla highlight garee control J kaas marka centerka saas baan marka kan xoogaa weyne okay marka xoogaa marka waa yareeyna maadaama spaceka hoose aan ku qorano resourcigii iyo contactigii isla highlight garee dhammaantood shift la qabo okay marka rectangle tool baa soo qaadanaa inahaas baa ku sideynaa rectangle-ka colorkiisa waxaa ku furanaa colorkaas maadaama asaga ku dul shaqeyno control 2 oo lock nooga xir ah aksada dhaqdhaqaaqi maayo control 2 marka waxaan rabnaa inaan soo gashano rectangle tool kale inahaas markuu yahay waa wax ku sameyn xoogaa yaroo
angalka. Markana marka wax ka qaadanaa copy control C control F waa baaweyneyna kan sare aan copy ku sameyn swap ku sameyn marka sidii hadii kale kan sare marka cadaan is kalarka cadaanka kan sare kalarka cadaanka is siskis sorry hoose si soo weyne shift la qabo adir mar marka dhexe isku geey kan hoose click si oo shift lahayd kan sarena click si alignment center to center okay markana waxaan rabnaa in isbedel uniformka ku sameeyno uniformkiisa waa kan xagan xoogaa waa ka khafiif halkana ku bidi marka yareeyo marka control J inta dhahay marka yareeyo hada marka yareeyo control plus marka waa kaas saas baa karabna marka halkana baa soo dhigana marka kalarkan hoose baa isaga kalarka la mid ah kalarkan hoose click si asaan ku fur okay marka asaanka iyo madowga noqdo groupka ka control J control minus kana marka qaadana copy okay marka isla yaray maadaama meesha nagu yaraatay inaas baa ka rabnaa marka ugu filan kan hoose oo logo ku xiran yahay inaan rabno xoogaa san hoos aan u qaadno control 2 kan xoogaa marka soo weynay okay marka waxaan rabnaa inaan computerka ramkiisa iyo xogtiisa halkan ku qorno si uu macmiilka iibsanaya ugu kalsoonaado goor marka waxa ku qoran halkan waa processor farta aan isticmaalay exo ma isticmaalay markan hore u isticmaalay copper far la dhaho copper black baan marka isticmaalaya markan kalarka ka bedel asaanka ku fur marka asaanka baa ku furnay okay kana marka waxa ka qaadanaa copy alta saas u diray gray marka dhana core i7 oo kale core i7 processorkiisa waa core i7 bracket for 8 generation oo kale 8th GN generation bracketka ku soo marka fartan mar rabo maadaama aan kor ku isticmaalo wala heli kare farta aan isticmaalayo marka waxay noqonaysaa ganans
Kalarkana waxaan ka siinaa white. Okay, marka qoraalka marka isla siin isla heli karee halka geesu marka qoraalka hadda isi marka alignment-iga labada qoraal inuu isku hal meel ka bilaabmaan markaas marka kana marka waxa ka qaadanaa marka waa copy hadda si uu noo diyaarsan yahay alt drag la heli karee alt drag. Okay, marka meeshan waxaa dhahanaa waa ramkaysiina sida computerada u badan yihiin soo baxay oo kale waxaa ka dhiganaa 16 GB ram. Okay, marka sawiraanta waxaa soo gashanaa waa hadhow iconka marka hadhow waa soo gashanaa hore marka wax dhameynaa qoraalada kuwan baa koobiyeysanaa marka copy wada heli karee dhammaantood alt drag falaarta marka loo xabo saas kugu noqoto halkaas u jiid intaa waa taqaantin cashir walbana waa ku sharaxaa. Okay, marka processorkan ma rabno markan waxaa ka dhiganaa hard disk heli karee control A hard disk fur halkaa ka dhiganaa waa 512 computerada dame GB oo SSD ah isku badanaa SSD ga jecel yahay HDD waa laga tagay. Kan hadda marka noo haray xogtan flexible baa kanana ka dhiganaa mid flexible ah okay, marka hadda waa dhameynaa hadda marka iconkii baa hadda noo haray inaan soo gelino iconka marka waa noo diyaarsan iyaguna waa in tusiyay mid walba wada heli karee dhammaantood aqoon wixii icon ah dhammaantood markaas usoo heli karaysato idinkana waxaan isu gelinaa linkii description-ka yaala ee Telegram saddexda markaas usoo heli karaysid ku shida halkaas. Markasta aan kalaraanteena u waafajino mid walba wax ku sameynaa image trace baa click siinaysaa expand calaamada toolka yarkaas soo qaado click ku sii background saas baa marka background marka noo ka jaray marka hadda inaan wax rabnaa kalarka aan rabno marka hadda waa siin karnaa kalarkan siina waxa waaye white kana sidii kale processkii baan siinaa image trace expand toolka soo qaado background toolkaas baa looga jaray click sii keyboardkaaga wax ka taabanaysa marka delete isma waalis. Marka saa isku gala marka hadda wax noo hara waa contactiga isagana waa iska fududyahay hoos baa ku qoranaa rectangle tool baan soo qaatay baa wax ku sawiran halkaa rectangle tool soo qaado halkaas ku sawiro markaas saa u sawirno marka wax rabnaa inaan wax yar aan ka bedelno isha yarta baa ku siinaysaa click isha kale oo geeskana click ku sii adoo weliba shift lahayn shiftiga ilaa waa laga maarmaan
xoogaa marka hoos usoo jiid rotate xoogaa yar marka waa kaas kalarkana asaanka intiisa hadda waxaan u rabaa contactigii kan baa kasoo koobisan si uusan waqtigu marka noogu dhicin Ctrl V group inta dhahdid Ctrl J dhexe marka qaabkaas xoogaa marka kor iskaga qaad okay marka hadaan isla aragno xogta iyo dhammaan Ctrl minus dhahno marka halkan waxaa noo oolaa waa computerka bariiskiisa halkan noo oolaa asagana rectangle tool baa soo qaadanaa halkaas baa ku sawiranaa kalarka aan siinayna waa dark blue kalarkan ah xoogaa yaraa marka wax ku sameynaya edit yartaa okay xoogaa si waaweyneyna maadaama aan laba si u isticmaalayo okay marka qoraal baa halkan ku qoranayaa in waxaa ka dhigayaa shaygan uu ku jiro discount before kalarka waxaa ka siinaa wixii qoraal waxaa ka siinaa kalarka white ah inay la socotaan baa rajeynayaa xoogaa bold ka dhig regular ma rabo bold si dadku dhan ay ila arkaan okay marka qoraalkan equipiye halkaas okay marka qoraalkan equipiye alt drag helid gare calaamada doolarka waxaa ka dhignaa inuu marka hore ahaa $400 aan ka dhignaa xoogaa dhinacaan u jiid dhexda okay marka soo dhaweyso Ctrl plus len tool baa halkan noogu sawirnaa isaguna dhexda intaa saas ugu qabatid halkaas ilaa iyo laba dhinac leegaysi kalarka aan siinayna isagana waa sizekiisa waxaa ka dhiganaa 5 kalarka aan siinayna waa white-ka nagu daa marka uniformka u bedelinay uniformkaas isticmaalnay 5 waa nagu yahay 10 okay marka saas baan ka rabnay in marka hore 400 ahaa beforekiisu 400 ahaa marka qoraalkan waxaan ka qaadanaa copy log ku xir wixii kaa dhaqdhaqaaqa Ctrl 2 after waxaa ka dhiganaa 360 okay marka hadda waa dhameynay marka hore wuxuu ahaa $400 maydana 360 discount intaas ka dhignay shayga waxaa ka dhignay in okay marka saas baa asagana ku dhameynay halkan waxaa noo dhiman isla halkan waxaa noo oolaa waa rectangle kale inta marka rectangle aan ku dhihin waxaa okay marka hadda waxaa noo dhiman asagana rectangle kale halkan asagana noogu sawirnaa oo asaga waa iska yaryahay xoogaa yar asagana soo geli round ah kalarka aan siinayna waa kalarka dark blue ah okay marka qoraalkan iyo qaad halkaas iyo arrange print font dhexda markaa saas u geysatid
waxaan ka dhignaa okay. Marka isaga intaas baa ka rabnay. Control mains waxaa dhexda marka Control J inta dhexdeed xoogaa soo weyne inaas marka okay. Marka xagga isaga marka wax nooca ahaa icon yar noo ola oo call center ka ahaa, icon yar oo call center ka ah halkan isaga noo ola. Iconkiisa marka waa noo diyaar, waa kan soo darbo garee kusoo siidaa kalarka ka bedelina image trace expand toolkaas click keyboard calaamada delete ka taabo. Asagana haddaan waafajino waxaan ka dhignaa haddaan yaree marka qoraal baa halkan marka ku qoran, kaas wuxuu ku jira group ku dhiisayna call center oo kale. Qoraal yar halkan marka ku qoran call center ka ah. Control A call center qoraalka waxa dhiganaa white qoraal ah waxa dhiganaa white yaree marka shift la qabo yaree kana marka waxa qaadana copy call center ka waxa dhiganaa 20 marka xoogaa lambarka weyne farta aan isticmaalana fartan ma rabo character fartan ma rabo tan igu new okay. Hadda marka waa noo saxan tahay halkaas noo gee. Halka marka Control J inta dhexdeed hoos halka noo dhig okay. Hadda okay marka hadda waxaa noo dhiman waa dhameynay designkii. Hadda waxaa noo dhiman inaan save gareyno file export as JPEG weyn halkan ku dooranta meesha ay dhiganaysid baa ka doonaysaa. Anaga waa la desktop noo yaala Nordic baa leenahay JPEG weyn halka ku doorta halkaasna tigta highlight tigtaas highlight file name kana waxa rabtid baa ku qoranaysaa adoo export halkan waa inuu ku ahaato maximum halkan 10 saas buu kugu soo baxaya marka wax save gareynaysid. Marka ma rabno ilaa 10 baa la geystaa halkan RGB ama CMYK haddaa daabacsid CMYK haddii kale RGB gaas u diisanaysa oo posteraan aad ka rabtid. Okay marka halkan waa 300 ku ahaataa okay. saas baa marka loo save gareeyo. Cashirka ku xiga inta ku kulmano. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.